dalada dhalinyarada Sooyo shaqaalaheeda iyo groupka face to face oo isku dhafan marka ugu horeysa waxay ku furan doonaa sida aayadaha Quraanka ah oo la akhri doono Khadar Axmed Ducaale barnaamijka la akhri doono isna madaxa mashruuca Maxamed Caydiid oo isna halkan naga wada doono horta waxa maanta farxad noo ah inaanu idila kulano oo aanu nimaadno iskuulkiina Axmed Gurey ayaa farxad noo ah waxaan ku mahadsantihiin isabaabulka maamulkiina iyo macallimiintiina ee noo soo keenay abaabulay inaanu ila hadlo noola suurtageliyay inaanu halka soo istaagno balada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo waa balad ay ku bahoobeen dhalinyarada Soomaaliland waa balad ay ku bahoobeen dhalinyarada Soomaaliland waana balad aad idinku leedihiin oo tilbitiidu diido sida qorisku diibko kale balada Sooyo waxay hariyo habeen diyaar u tahay una taagan tahay waxa qabadka dhalinyarada Soomaaliland waxa maanta aan halkan idinku nimi inaanu idinku baraarujino aan idinku gelino waxbarashada si waqtigiin nolosha waxay horumar ku leedahay amba ay dhadhan ku leedahay waxbarashadu waa wax muhiim ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala yana quraankiisa ku amaanay uu leeyahay hal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yismihin kuwa wax yaqaana iyo kuwa aan waxba aqoonin jaahilka iyo ninka caalimkii meesmihin ayu Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay Ilaahay isagoo amaanayo waxa uu yiri wal ladina utul ilma darajat kuwan sinna cilmiga waxaanu ka yeelay martabada sareeya waxa lagu gaaraa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kale aanu ku oran aqoonta waa shay muhiim ah kuma hagi karta meel kasoo tagtid aqoon laan wax allaale waxa tahay ma jirto jiritaankeena meel aqoonta ku jirin soo jiritaankeena aqoonta kuma jiro aqoontu waa inay nagu baranaa sidii la isku dawaalo dadaalku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka ibnaadamka la yimaado waxa fiican oo kale inaynu nolosheena gaadhno inaad ku fahamidaan oo ka fikirtaan inaad gudubtaan oo markasta gudubtaan martabad ka sareysa sanad kasta inay aqoon ku korodho oo sanad kasta inay akhlaaqdaadu dhisanto oo sanad kasta oo garaad iyo habeenba kugu kordho waa inaad samaysaa inaad horumar aad gaadid nafteeda waxaan ku dardaaraya inaynu waxbarashada hariyo habeen u taagnaano hablaha si gaar ah waxaan ugu dardaarmaynaa inay waxbarashada iyagu hayaan oo muhiim tahay gabadha khaliyaata ee wax la baraa waa bulshada oo dhan oo wax la baray hablaha waxay leenahay inay dadaal gaar ah muujiyaan weli ay sanadadan dambe habluhu ay hogaaminayeenba imtixaanada dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose oo taasina ay tahay mahad gaar ah taasina waxa weeyaan inay dadaalka kordhiyaan oo ay keenaan waxba badan ay si fiican wax u bartaan waxay ka qayb qaadan karaan oo loo sahlay go'aanada dalka ugu sareeya waxay noqon karaan dad horumar ku hogaamin kara bulsho wax baratay oo bulsho horumar iyo leh himilo waxaan aad ugu faraxsanahay sida fiican oo dhageysanaysan waxaan aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ka baryaya inaad noqotaan dad horumar iyo yeesha dalka iyo dadkana anfaca dad ay waalidoood ku farxaan inaad noqotaan inaad inamada iska ilaalisaan waxa daraadka leeyahay inaad iska ilaalisaan sigaarka amba qaadka inaad iska ilaalisaan saaxiibka xun ee garaadka ka dhaxqeynaya amba sameeya inuu fowdo ka dhaxkiciyo ardayda dhexdooda waxa fiican inaad ku daweeshid inaad noqotid qofka lagu daydo iskuulka inaad noqotid qof waxbarashadiisa ku foogan hariyo habeen u taagan inaad ku fikirtid inaad adigu noqotid hormuudka dalka sidoo kale qabno qof kasta habeen maalin buu soo gaaraa inteeda halkan tubani maalimaha kamida ayaa waxaanu taagnay inaan lagala hadlo sababka hortiisa in arday inaan la soo booqdo sidaan idin soo booqano kale annaga oo yaryar waxa maanta muhiimidina idinkuna inaan halkan iyo marxaladan aan taaganahay inaad ku nabadgelyo baatid haday tahay balada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland cid aan idinka ahayn balada ma laha sidii sidii diiba
inaad hamigiina siisaan horumarka dalka ayaan aad ugu sameynaya. mahadsan maxamed caydiid idinka laftiinu aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ayaad u dhagaysateen kolley barnaamijka dheerayn mayno idinka laftiinuna cadceed ayaad fadhidaan iminkana waxaa kusoo dhaweyn doonaa cabdifataax cumar jaamac oo ka mid a isaga laftiisuna groupka face to face ee maanta halkan idinla jooga. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa maamulka iskuulka axmed guray khadar waxaan iyo runtii isku asxaab ahayn iskuulkan halkan idinku yimaado anigoo kala ka socda groupka face to face iyo ururka dalada Soomaaliya ammaan badan waxaan oran lahaa maanta dhaqankeena iyo runtii diinta islaamku waa isku mid waa halkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam looga bilaabay ee loo isagoo ummiya iqra walaha waxa uu akhriyo markii dambe uu ahaa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. runtii aqoontu halkaas ay ka taagan tahay sharafka nabi maxamed oo ilaahay wuxuu soo diray u khayr badnaa ayaa looga bilaabay in la yiraahdo iqra ama wax akhriyo inta kadib waxaan oran lahaa ardayay waxay u baahan tahay carabtu waxay tiraahdaa ma xikmad carabeed baa waxay tiraahdaa al-jahil yaqtulu nafsahu ama qofka jaahilkii naftiisa isaga dilaba oo maanta hadaad tiraahdo runtii aad aragto ama wax yar oo walxa yar oo qaraxda ama bamba meel taala oo moodo weesayro shaah uu shubto kale ama moodo falaasi gurigiina kala qaadato gargaracday ku qaraxdo markay u yartahay gacmaha ay goynaysaa salma marka runtii waxa weeyaan ka digtoona taana waxa laga digtoonaan karaa inaga aqoon barana oo aqoonteena runtii horumarina ka arday ahaan higsanana jiilkiina ugu horeeyay ee sharaf ku dadaasho oo ardaydu akhlaaqda ha wanaajiso si aynu u noqoto cilmigeenu barayna mid xalgara uu noqdo oo aynu noqono arday mustaqbal leh runtii waalidkooda iyo wadankooda iyo naftooda anfaca inta kadib dhaqankeena iyo aqoonta hadaan u imaado dhaqankeena runtii waxayna filan hal gabay oo lahaa tusaalahaan hal qabsi ka dhiganayo oo uu leeyahay abshir nuur faalax abshir baalle ilmaan macallin loo helini waa maqal waareebe اللهم صل على محمد هل قبس معها وانت اصلا خلقت كدغنيا runtii intaasaan kusoo gabagabayn lahaa waxaan lahaa in Allah fiican aynu halka ka sugan dadaalkeena waan mahadsantii sida wanaagsan ee noo soo dhaweyseen aad iyo aad way mahadsantiin dhalinyaradan oo wacyigelin ku saabsan waxbarashada inoo waday marka waxa wanaagsan in inaga lafteenu maanta isbedel baa dhacaya maalin walba qof qabta xilka berito waxaad noqonaysaa qoladii bedelasay haddaan la yidhaahdo idinka laftiina dadaalka waa wada la sii fiicayo marka waxaan u mahad celinaya qoladeena soo booqatay ee dalada Soomaaliya ka socota waxaan leenahay waa mahadsantiin.